بسم الله الرحمن الرحيم شلay waxaa warbaahinta la hadlay nin beesha dhexdeeda looga yaqaano boqor taayeer oo runtii 2000 sanadkii 2012 markii la qorayo odayaasha dhaqanka galay boos markii hore loogu tala galay inuu qaato boqor buurmadow booskaas galay laakiin taariikhiyan isagu kamid ahaa askarta ciidamada badda ee Soomaaliland ninkaasi shalayto warbaahinta iyo marar hore oo badan wuxuu ka sameeyay aflagaadooyin uu ku weerarayo si miyir la'aana dad madaxa mas'uuliyiin ah oo sharaf leh oo anigu aan kamid ahay markaas maanta waxaanu halkan xiraalinta qaranka ku xiraynay gal dacwadeed nambarkiisu yahay G1 2377 ayaanu xiraynay oo dacwad lid ku ah ninkaan kor ku soo sheegay waxaan rajaynaynaa inaanaan hadda wixii ka dambeeya horgeyn doono sharciga si looga qaado tallaabo sharciya hadallada bilaa nidaamada uu ku hadlayo loogu ciqaabo sharciga hortiisa kolley dad baa noo soo adeegsada laakiin wixii hadda ka dambeeya waa lagula xisaabtamayaa aad iyo aad baa u mahadsantahay